kulanka laba toddobaadlaha ah ee ay labadii toddobaadba mar qabsadaan hogaanka sare ee gobolka Awdal ayaa maanta waxa uu ka dhacay xarunta sare ee gobolkaasi Awdal. kulankan oo horey uu qorsheeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Awdal markii uu xilka la wareegay hadda waqti laga joogo bil iyo xogaa. Sidooyaasha kala duwan ee qaybaha dawladda ayaa halkaasi iyagu ka soo qayb galay. Waxa maanta arrimihii lagu qorsheynayay kulankaasi uu ahaa laba arrimood kaasi oo ah arrimaha nabadgelyada ee iyagu maalmaha ka soo cusboonaaday meelo mida deegaanada gobolka Salal iyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa dakhligada kala duwan ee markaas iyagu gobolka soo gala. Xogayaha gobolka Awdal Cabdulaahi Xuseen Aare oo isagu halkaasi warbixin kooban ka soo jeediyay ayaa waxa uu u mahadnaqay cashuur ururiyayaasha iyo markaasi laamaha kala duwan ee dakhliga dawladda uu ka soo galo sida bangiga oo kale oo uu ku tilmaamay in ay shaqadoodii bariyahan laban laabeen. waxaana kamid ah hadaladiisii xogayaha mar uu arrimahaasi ka hadlayay. قال له قلنا هاي كستنكا ودخلي سؤال كل جوجا تستكمل كل هراء إمي كان وكل دوائي لا 12 مليون ودخل قاعد يدخل لي إن يرنا وحلينا يقصي بديان ولي بعد يلا يلاحظوا وهي مشاركة شغالة يوحي كوبان قصوبة حنا بحان كل حرام سكن عاديات بنقوم هذا علنا مدة وجوجي سوى نحسبون ولا شقية سجويا شكله لما أنت أنت هالخافة لذاهي waa gudoomiyaha gobolka Awdal sida oo kale uu xubnihii iyagu kala duwanaa ee halkaasi ka soo qayb galay ku dardaaray in ay kaalin muhiim ah siiyaan sidii foojignaan xagga nabadgelyada ku saabsan iyo arrimo kale ay uga hadli lahaayeen taasi oo iyadu markaasi la isla qaatay. gudoomiyuhuna mar uu arrimahaasi ku tirtirsiinay waxa uu yiri intaas markay wada socoto ay wada shaqeynayso waxa ka dhigan tahay dawladii sare oo heer gobol la ka wada shaqeeyo ka dhigan tahay la yiraahdo dad kala wada shaqeeyo insha Allah kulli shirarkeena waxay noqon doonaan kuwa milkiilaha oo aynu muxuu ahaa cisho wixii laga hadlayo aynu muxuu ahaa soo ajabeyno wali waxa mudayna ku jiro qarbo iyo xaalado kale lagu jiray oo nagu iyo wasiirada maanta imaanaya ilaa lix qof xaalad taagan baa laga wada xaaladda oo xilliga lagu jiro iyo gobolkan iyo muxuu ahaa gobolka Salal أول بواب مكرر أنت لكن هو قبل نضاي حالات تجارة هي كذا من فوق التجارة هذا قبل كل نفس سبعين سنة ده وحده حقا كل شيء وحق يطلب يقوم بهذا أي حاجة تصور قال يعني حقنا صور أرض بري لما تميق لما يطلعون كي بركي طريق غير في عيلة وطوي بحن حاجة أقول جيب بتجين إلا يوم كواحد بدل مجرى تبعته وإيش هذا نمجر لكن كل يوم حنقول جرح حالة إنه waa markii saddexaad ee ay kulmaan tan iyo inta maamulka cusub uu xukunka la wareegay taasi oo ay markaasi iyadu arrimo dhowr ah ay kaga wada hadlaan. taasina waxa ay keentay laamihii dawladda ee iyadu markii hore loo maleynayay in ay jiifaan in ay kor u kacaan oo ay markaasi waxyaabo fara badan oo kala duwan ay u qabsoomaan. Xasan Ciise, Universal TV, Boorama.